هيتي مادنا رحنا أولها مؤكتهي maanta safar ku mari doona guud ahaanba qaaradda Afrika ma ogtahay daawadow ama dhageysto in qaaradda Afrika ay tahay qaaradda ugu kulul xagga cimilada oo dhan adduunka oo dhan sidaas oo kale waa qaaradda labaad ee adduunka oo dhan ee dhulkeeda uu qalalan yahay ama uu engegan yahay mase ogtahay in qaaradda Afrika ay tahay qaaradda labaad ee ugu weyn qaaradaha adduunka oo dhan ma ogtahay daawadow in Afrika ay tahay qaaradda labaad ee ugu dadka badan adduunka idil sanadkan sii dhamaanaya ee 2019 qiyaastii la soo saaray waxay sheegaysaa in Afrika ay ku nool yihiin dad gaaraya 1.3 bilyan halka qaaradda Aasiyana ay tahay qaaradda koowaad ee ugu dadka badan adduunka oo dhan mase ogtahay daawadow in qaaradda Afrika ay tahay qaaradda adduunka oo dhan ugu saboolsan ama uu faqriga dishay qiyaastii la soo saaray waxay sheegaysaa dadka ku nool dhulka saxaraha ka hooseeya inay ku nool yihiin maalintii 70 senti oo dollar halkan warbixinta kuma raacsani oo sabool ma ahan qaaraddan Afrika laakiin dadkeeda ayaa tuuga ah oo kabaqaad u ah wadamada reer galbeedka alla maxay qaaraddan Afrika ka buuxaan dad gumaystaha u sujuuda reer Faarax Axmed Madoobana warkooda haba sheegin allow alle ma ogtahay daawadow in dadka Afrika ku nool boqolkiiba 40 ay yihiin dad aan waxba qorin waxna aqrin dadkaas waxa ugu badan haweenka ku nool qaaraddan mase ogtahay in kala bar dadka ku nool qaaraddan Afrika ay ka hooseeyaan da ahaan 25 sano waxay taasi ka dhigaysaa in dadka qaaraddan ku nool ay yihiin dadka ugu da'diyar adduunka idil ma ogtahay daawadow in 25 milyan oo qof oo qaaraddan Afrika ku nool ay la ildaran yihiin xanuunka HIV-ga 17 milyan oo dadkaasi ka mid ah waxa looga yeeray hooslaan oo quburaha ah mase ogtahay daawadow ama dhageysto in duumada ama malaariyada boqolkiiba 90 dadka u dhintaa ay ku nool yihiin qaaradda Afrika dadka adduunka markay kaneecada la dagaalamayaan dadka Afrika ku nool hunguri iyo gaajaan la arkeen ayaa la tusay iyagoo haysta dhul iyo kheyraad aan dhamaanayn oo maxay kaneeca iska buufiyaan Africa always Africano ma ogtahay daawadow in qaaradda Afrika looga hadlo qiyaastii 1,000 luqadood halka qubaro kale ay sheegaan ilaa 2,000 oo af looga hadlo qaaraddan mase ogtahay daawadow in dalka Ethiopia iyo Liberia ay yihiin labada dal ee qaaraddan Afrika aan marnaba la gumaysan mase ogtahay daawadow ama dhageysto in dalka Masar uu yahay wadanka kaliya ee qaaradda Afrika ee dalxiisayaasha aad u booqdaan sanad waliba waxaa dalka Masar booqda 10 milyan oo dalxiisayaal ah hala ya baasha caamilin mase ogtahay daawadow in dalka Masar uu caan ku yahay ahraamtii ay dhiseen faraaciinta inkastoo dalka Suudaan uu ka ahraam badan yahay dalkaasi Masar Suudaan waxaa ku yaala qiyaastii 250 ahraam taas oo ka dhigaysa wadanka ugu ahraamta badan يا زول مبروك عليكم ma ogtahay daawadow ama dhageysto in 5 ka mid ah xayawaanaadka duurjoogta ay ugu xawaaro dheereeya xagga orodka ama fagaxda ay ku nool yihiin ama ay hoy u tahay qaaraddan Afrika kaalinta koowaad waxa ku jira haramcadka kaalinta labaadna waxa ku jira boqorka duurjoogta waa libaaxa kaalinta saddexaadna waxa soo buuxiyay ama ku guuleystay lo'da duurjoogta Afrika halka kaalinta afaraadna ay ku guuleysatay goronyada kaalinta shanaadna waxa ku jira golcasta